Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga igu xidhan soo dhawaada sidee tihiin may fiican tihiin aniga waa idin fiicanahay maanta fiidiyoga wuxuu ku saabsan yahay self care maanta wax kale ma qabanayo nafteyda baan ka shaqeyn doonaa oo aan waqti la qaadan doonaa insha Allah marka hadda waan bixi waxaan tagi saaloonka amba koofeerka timahaan soo hagaajisani oo la soo maydhay insha Allah kadibna lugaha pedicure lagu sameeyni amba la soo nadiifini la soo duugduugi insha Allah sidoo kalena wajiga clean up la igu soo sameyn kadibna waxaan tagi doonaa insha Allah meesha oo massage-ka body massage baan soo sameysan doonaa insha Allah kadibna banaankan ka soo cunteyn doonaa marka waa kaas hadda ayaan soo baxay waxaan soo gashday face mask-keygii iyo helmet-keygii furihii mootodeedana waa soo qaatay mootan waxaa soo shaqaa ku soo qaban doonaa insha Allah isla socod wanaagsan waa kana waxaan imaaday hadda meeshii massage-kan ku soo horeeyay meeshan mool ay ku dhex taalaa gurigeygana xoogay amba cabaar ay u jirtaa meeshan waxaa yaala ay machine oo massage ah oo kala nooc ah kuwaan mashiinada oo lagu masaajeeyo qofkii raba lagu kaliya in loo masaajeeyo ayaa mashiinadaas kala mashiinadan kalena waxaa mashiinadii body-ga oo dhan lagu masaajeynaayo macala lugaha uu ku masaajeynaya midda kale waxay haayaan mashiin yar oo gacanta lagu qabto oo mashiinkan weyn meeluhuna masaajeynaynin amba meeluhuna gaadhaynin ay kugu masaajeynayaan marka waa kaas meeshan 30 minutes amba 30 minutes ayaan joogaya waxaan dhahay 30 minutes ii galiya waqtiga mashiinka waxaan galay body-ga oo dhan macala lugaha ahaa kii yaraaya kalena waa la igu masaajeynaa jirka intiisa kala kaasna la igu masaajeynaya marka meeshan massage-ka waxaan imaadaa markii aan aad u daalanahay oo aan shaqo badan iyo waxaas aan qabtay iyo markii jir xanuun aan dareemayo marka jir xanuunkii iyo masal xanuunkii iyo daalkii wuxuu dhan u ka kaxaynaya firfircooniya ka helaysa dhiigga ku kala furfurmaya adi faxfaxa noqonaysa marka waa kaas halkan 30 minutes ayaan ku qaadan doonaa insha Allah kadibna waan ka tagi doonaa isla socod wanaagsan asxaabteyda sharafta leh haddana waxaa imaaday meeshii saaloonka amba koofeerka kulani koofeer ayaan u aqaanaa laakiin waxaa dhici karta inaa idinku waa magac kale u taqaaniin maadaama uu kala lahjad duwan yahay marka meeshu saan ayay u eg tahay oo iska qurux badan tahay jawigeedu iska degan yahay meeshana sidoo kale waxay ku dhex iibiyaan dhar iyo cosmetics iyo shandada iyo waxaas meeshan lagu dhex gadayaa marka hadda waxaa la keenay buuggii oo menu-ga waxaan kala dooranayaa wixii la ii qaban lahaa yacni sidii oo lugaha la igu dhiqi lahaa sidii wajiga la igu clean gareyn lahaa sidii timaha la igu hagaajin lahaa waxaas ayaan kala dooranayaa waayo waxay haayaan 50 nooc oo timaha iyo wajiga iyo lugaha lagu sameynayo lacagtooduna ay kala duwan tahay asxaabteyda qaaliga waa kana wajiga la igu horeysiiyay wajiga waxaan doortay in la ii sameeyo fruit facial clean up markaas u jeedaan wajigii hadda waxaa la ii mariyay face wash-kii wajiga la igu dhaqaaya oo la igu clean gareynaya si uska uga soo baxo face wash-ka markii la iga dhaqay waxaa la ii mariyay scrub kadibna hadda waxaa la ii sameynaya steaming marka iga raali noqdo qof oo indhaha isku hayaan ahayo wajigii kolba wax loo marmarinayo marka wixii la ii mariyay oo dhan waan duubi kari waayay maadaama indhaha isku hayay marka wajiga waa la ii duugay waxyaabo badan baa la ii mariyay oo aan garanayn xitaa waxay ahaayeen qaarkood kadibna hadda waxaa la ii marinayaa sawjeeda fruit mask marka maaskan markuu igu yara qalalay ilaa 20 daqiiqo sugayay intuu igu qalalayay waa la iga remove gareeyay waa la iga dhaqay kadibna cream baa la ii mariyay adi muddo ilaa 30 daqiiqo ay gabadhaasi wajigeyga ka shaqeynaysay ii duugaysay aduun ii marinaysay kaaliska arag soo haddana lugihii ayaa la ii nadiifinayaa lugaha waxaa la igu dhex riday biyo kulul oo lagu shubay milix yar iyo shaambo 10 daqiiqo
biyahaas ay lugahaygu ku dhex jireen. Haddana saa ujeedaan lugihii yaa la ii dhaqaayaa sida dharka loo dhaqaaba lugihii la igu dhaqaayaa. Meelahan oo kale waxa weeye inaan imaano waa u baahannahay oo iskeer gareyno. Anaka haddaan dumar nahay mar walba waxaa mashquul ku nahay guri, shaqo, waxbarasho, ilmo. Marka badanka waxa weeye nafteenaba waqti uma helno. Waxaana fiican inaadan naftaada iloobin oo waqti aad isku heshid oo iskeer gareysid, jadwal samaysatid, wiigii hal maalin amba bishii hal maalin aad tiraa maalinta anaa iskeer gareynaya tin ilaa cirib waan nasanayaa amba gurigaaga isku keer gare amba saaloon aad. Muhiimadu waa inaa self care samaysid oo waqti isku heshid. Haddii aadan iskeer gareynin qof kale ku keer gareynayo amba kuu hagaajinaya naftaada oo kaa warhaynaya ma jirto amba self care kuu sameynaya. Marka I hope videogan inuu dhiirigelin idiin noqdo insha Allah. Markii oo waxa weeye lugihii la ii nadiifiyay tintii la iigu xigsiiyay tinta ma idiin soo duubin waa ogtiin anigu halkaan inaan tinteyda keenaynin YouTube-kan iyo public-kan. Marka waa kaasa saaloonkii saas ayaan kaga soo dhamaaday. Haddana waxaa imaaday meeshii laga cunteynayay. Meeshaan waxaa laga helayo keliyata cuntada fast food-ka ah, cuntooyinka caadiga ah laguma iibiyo halkaan. Cunto caadi intaa rabtid waa inaad banaanka ka raadsatid. Marka waan ku qasbanay maanta inaan fast food cuno. Marka KFC-gan aan wax ka dalbanay waa layla socdaa keligii miyihi. Marka saas ujeedaan chicken, chips, sauces iyo waxaan dalbanay cabitaan. Marka kaasa meeshaan waa laga buuxaa aan fadhino. Markii aan cunteyno insha Allah waan bixi doonaa gurigaan tagi doonaa. Marka videoga intaan aan ku eekeynayaa maanta self care-kayga intaas ayuu ahaa. Intaan videoga ku xiga kulmayno waxaan idinkaga tagayaa. Maca salaama.